safarkan oo isugu jira kurgalida xaaladaha deegaamada ee colaadu ku dhex martay beelaha walaalaha ee wadadaga deegaamada hoos yimaada degmada Buurtile iyo Sool iyo sidii loo dhameyn lahaa colaada nabadna loogu dabaqi lahaa ayaa waxa deegaamada Balidacar Godurwa Magaale iyo Meegagle gaaray wafti ay kamid ahaayeen gudoomiyaha gobolka Nugaal xildhibaan Shacuur oo kamid ah golaha wakiilada Puntland maamulka degmada Buurtile iyo qaar kamid ah saraakiisha ciidanka Puntland waxa ayna socdaalkooda marba meesha la marayo kulamo kula qaadanayeen waxgaradka deegaamada iyo qoysaska reer miyiga iyadoona ay kala hadlayeen sidii ay nabadda uga qayb qaadan lahaayeen dadka deegaamadaasi ku dhaqan dhamaantood waxa ay ahaayeen kuwa soo dhaweynaya nabadeynta ay wadada dawladda Puntland oo kaashanaysa waxgaradka izimada culimada iyo inta samaha jecel Umar Abdullaahi Maxamed Faraweyne gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa ka warbixiyay socdaalkooda iyo sida ay nabadda baahi ugu qabaan dadka walaalaha ee colaadu dhex martay 23 bishii 9 2015 dagaal khasaare dhaliyay baa ku dhex maray beelo walaalaha wadadaga deegaankaas u dhaxeeya Qoriley iyo Meegagle isla habeennimadii 24 ku soo galisay oo maalintii ay wax dhaceen na qolo ciidan hubaysan oo baabuur wata baa soo weeraray deegaanka Jalam halkaas oo khasaare ka dhacay adigu wadana ku dhintay dhaawac badan oo ciyaal iyo caruur iyo dumar iyo intaba leh oo ka dhacay odayaal iyo magaalay haydo meel camirana waa ahayd habeenkaas aan waxaan ka soo baxay Garowe waxaan meeshii dhibaato ka dhacday ee deegaanka Jalam isla habeennimadii waa soo gudbayo waxaan soo gaaray 8 saac iyo aduu daqiiqado degmada Buurtile halkaas aan ugu imi gudoomiyihii degmada iyo rag odayaal ah maalintaas 24 kaana waa joognay 25 kiina waxaa noo yimi madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland waftigu hogaaminayo oo aad u ballaaran oo u socday colaada dhex martay deegaanka dadka walaalaha ee wadagan deegaankaas oo wada dhashay halka waxa ka bilowday shirarba ka bilowday si loo xalliyo dadka reer Puntland ee ku dagaalamay meeshaas shirarkaas go'aamo laga soo saaray arintu meel fiican bay maraysaa inta wixii ka dambeeyay 26 bisha maalinimada Sabtidii anigu waxaan aaday wafti aan hogaaminayo oo saraakiil iyo xildhibaano leh iyo maamulka degmada xubno ka tirsan waxaan aadnay jiidii hore ee dhinacii soke ee dagaal ka dhacay waxaan sii marnay magaalada Balidacar waxaan tagnay Magaale oo ah Frontline-ka labada beelood kala degan yihiin halka waxaan kula kulanay dadkii meesha deganaa cuqaashi dhalinyaradii waxaanu gaarsiinay baaqi dawladda Puntland ee ahaa nabadda inaan wax dama dhicin nabad dawladda Puntland barnaamijkeedu yahay dadka walaalaha inay nabadayso oo ay juhdi badan geliso qof walbana ay geed walba ugu tagto iyo meel walba u joogo nabaddu ay gasho dadkaas waan la qaateen waxay ahaayeen dad nabadda jecel si fiican baan waxaanu isla garanay inay ay nabad diyaar u yihiin waliba dadkaan aragnay dadku masiiba isu keentay waa iska dhibaato shaydaan baa isku laayay dhowr iyo 10 oo meesha fadhiyo rag waxgaradka nin walba wuxuu yiri aniga qolaas oo abtigay aniga waa seedigay taas wada suranto liba ka soo koobay haayeen aad iyo aad baan waxaanu isku garanay in nabadda la ilaaliyo barnaamijka dawladana waa gaarsiinay kadib waxaanu ka aadnay dhinacaas koonfur galbeed ku aadan magaalada Magaale waxaanu tagnay meel yahay Godurwa oo tuulo yar oo dad badan degan yahay oo reer baadiyo ku soo qaxay oo dad badan oo reer Nugaaleedii isugu yimaadeen dhinaca Soolkana waa looga yimi dadku waa wada degan yahay halkaas waxaanu kula kulannay dadkii meesha deganaa waxaanu aragnay dad nabadda u baahan waliba ay u nugul yihiin nabadda oo ciyaal iyo dumar iyo caruur aad nabadda u jecel oo colaadu aad u damqayso ayna ka muuqato dhilada colaadeed oo meesha ka dhacday sida ay ugu xun yihiin gudubnay waxaanu tagnay magaalada weyn oo
aad u camiran oo leeyahay Meygaagle halkaa waxaan kula kulannay dadkii deegaanka deganaa odayaashii waxgaradkii cuqaashii dhalinyaradii waxaanu isla garanay barnaamijka aanu wadnay oo ahaa in nabadda la taageero waa isla qaadeen barnaamijka nabadeed waxay noo sheegeen dadkaasu inaysan kala guurayn annaguna waa u sheegnay waxaan isla qaadanay nabaddu inay muqadas tahay runtii waxa weeye aad iyo aad iyo aad bay soo dhaweeyeen waxayna baaq u jeediyeen inay nabadda way duuban tahay inay nabadda diyaar u yihiin annaguna insha Allah tacaala waxaanu ka shaqayn doonaa nabadda waxaan baaq nabadgeliyo u dirayaa dadka walaalaha ah ee wada degan deegaankaas in nabadda la qaato dagaalka la joojiyo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dadkaas waa wada deganaan doonaan haddii Allah idmo horena waa wada deganaayeen dadku waa walaalo waa isku seedi waa tol wixii dad la yahayba waa yihiin annaguna waxaan ballan qaadaynaa ka maamul ahaan annagoo gobol ahaan annagoo ka wakiila dawladda dhexe inaanu nabadda geed gaaban iyo geed dheerba u fuuli doono qof kasta oo reer Puntland ama dhinacaas kala ha ahaado soo laga xukumo ama dhinaca nugaa laga xukumee meel kasta ay nabaddu gashaan ugu tagi doono oo qof kasta geedku harsanaya ugu tagi doono oo caruurta gurigooda ugu tagi doono socdaalkan ayaa ka mid noqonaya nabadeynta ballaaran ay dawladda Puntland la rabto dadka walaalaha ee dirirta ku dhex martay deegaamadani guuleed jaamac saajid warbaahinta dawladda Puntland deegaamada degmada Buurtile